مو ملاينaysa inay jirto goojo la yiraahdo Fountain of Life taasoo caafimaadkaaga xalwa hadaba muuqaalkan kooban waxaan ku sharaxi doonaa faa'iidooyinka dhowrka ay leedahay goojada Fountain of Life iyo tasiyaabihi kala duwan ee u caawisay dadyo kala duwan oo adduunka kala sugan Fountain of Life waa goojo dabiici ah si dabiici ah jirka uga shaqeyn doonta waxa soo saaray company la yiraahdo Oblas Global oo ku yaal wadanka Canada company-gaas wuxuu ka saacideynaya kana caawinaya kuna sahlaya inaad ka ganacsato in ka badan 204 wadan adan guriga jooga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يفرح سعود حسن وحنا هنا أوتوا كندا وحن جوجدنا ربنا إن لو ذا جماعة هذا Fountain of Life ومدة أن قاعدني أفر صناعي أفر بلاد صومالي استعماش وح أقول يعني هو ذي معان هو وحي درنت فائدة إذا صدق الشبكة ود صوته إتهاي وحي قفت وحلي هذا أرثرايتس أمر روبوتيزم لغة حنون كر حنون صلاة جرعان جرت استاج صوب حسن اللي بيجري صدق أسبوع مركي ودنا هو وحي بلاد إني عادي صلاة وتكت الحمد لله أنا جم حاجة عاوز كو أيرون ضدك أيرون كله هو سيانها سيدو كله على الاستاج ما أنت روح عنايا على شيء ده ميسعون جرين وقدام محاجة عاوز سي ألرجيز أم حساسية صنبور إلا إلهي توصل مكان جري كنين أي قادم جري أنت بلاي سبحانه وتعالى ويجا وضي سو سيد الله قاتها ربنا ينتصيو تمن بعوض بأباهم تهمالنتي أوكي سو أنت سو كله أي قادم يسمعني كاستعرف كوسيس أي الله قاتها بسم الله وحنا هذا مركي خرار يرى أوكي سو مركي وجوه رزقك وحنكون هنا بيئة مجوس والله لكن حنوتي هذا الله قف صندوق Fountain of Life waxay ka mid tahay productida cajiibka oo soo saaray company-ga Oblas Global waxaana la isku yiraahdaa Foam Revolution qaybtan waa qaybta health-ga I think inaad arki kartaan hada gooshada halkayda ka muuqata ayaa la yiraahdaa Fountain of Life waa goojo dabiici ah si dabiici ah jirkaaga uga shaqeyn doonta waxaana laga sameeyay geed la yiraahdo Norwegian spruce oo ka baxa dalka Norway geedka muddo 30 sano la daraasaynay waxa la ogaaday inuu ka duwan yahay geedaha kale lidkiisa waxyaabaha caan ku tahay waxa kamid ah goojadani in afkana laga qaadan karo korkana laga isticmaali karo goojadani waxa leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo halkan lagu soo koobi karin waxyaabo badan oo way caawinaysaa muddo 2 sano aan qaadanayay goojada runtii waxaan ka dareemay faa'iidooyin aad u tiro badan waxaana kamid ah inaan lahaa gaas ay iga caawisay sidoo kale waxaan lahaa tonsillitis ama qanj xanuun ay iga caawisay sidoo kale waxay iga caawisay sanboor faa'iidooyinka hadda ku sheegay faa'iidooyin aad u tiro badan ay goojadani leedahay ayna koobsatay boqolaal qof oo Soomaaliyeed oo ka iibiyo macaamiishayda ahaana siyaabo kala duwan ay uga caawisay goojadan muddada isticmaalayay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وانا نعيمة عبد النور وحاكنو الله ودنك مريكنكا سان كلاود ميل يراهدو او ودنك قبل كمينيسوتا وحاربا انا مانتا كهادلو Fountain of Life goojadena dabiiciga iyo waxa ay tarto waxaan isticmaalayaa hadda 2 sano iyo bar ku dhawaada ay isticmaalayaa 2 sano isticmaalayaa qiyaastii waxyaalahan ka faa'iiday waxa kamid ah inay iga caawisay gaaskii inay iga caawisay migraine-kii sidoo kale waxaan haystaa wiil yara oo teenager ah caloosha dadka waxa waaye constipation-ka mar walba ba arkin oo leh markuu joogto uma isticmaalo mar walba iska ilooba waxa arkaysaa habeenkii asagoo raadinayo markii calooshii ay taagan tahay oo arko aad iyo aad bay u caawisaa sidoo kale wuxuu leeyahay sanboor ayuu leeyahay ama allergy oo minor ah macnaheedu oo aan aad u darnayn bisadoo kale allergy ayuu ku yahay markuu iska dareemo ayada mar walba aan boorso ugu wadaa hadda caawa kale waxaa joognay magaalada gabar walaashay gurigeeda bisada u joogta marka bisada ma daynayo xabadiisa waxa waa ka daawadaa marka halkaan kala sanka markuu marsado caburkii iyo wixii oo sanboorka uu dareemayay ama allergy aad buu uga nafisaa maasha Allah tabarakallah sidoo kale waxaa jira wax aniga aad iyo aad khaas igu ah oo jeclahay taasoo ah in miisaanka iga caawisay macnaheedu ma ahan in caawa inta qaadato isla birta miisaanka uu ka dhacayo laakiin haddii aad dietkaada wanaajisid Fountain of Life aad qaadatid oo aad joogteysatid aad iyo aad ayaad uga faa'iidi doontaa fadlan waxa waaye videoga qofka ku soo diray insha Allah la xiriir kuma qasaari doontid salaam alaykum su'aasha la isweydiinayay ayaa ah goojadan yaa u baahan yaase u baahneed
goojadan kii xanuun ka cabanaya waa aniga soo sheegay faa'iidooyinka dhowrka ay koobsatay inta halka ku sheegay in ka badan way leedahay goojadan wayna daaweynaysaa si dabiici ah kii aan xanuun ka cabanayn goojadan waxay u tahay ilaalin ama prevention immune systemkaaga ayay dhisi doontaa sidoo kale waxaa ku jirta lignaskaas oo isku balance gareynaya cuntadeena cunno runtii goojadan qof walba uu baahan yahay inuu qaato kii xanuun ka cabanaya kii kaleba insha Allah qofkii ugu baahan macluumaad inta dheer waxaad igala soo xiriir kartaan qaybta prescription-ka ayaan idiin dhigay dhammaan macluumaadkayga iyo meelaha laga heli karo insha Allah goojadan meel walba aad joogto waa lagu keeni karaa waana iska faa'iideysan kartaa insha Allah tacaala fadlan haddii aad muuqaalkan ka hesho subscribe saar la wadaag walaalaha siina share gare si ay inoogu wada faa'iideysan